kuwa ordaya ee daba ordaya waa idinka kuwa wadankooda nacab ee markasta ee majority inta badan dameeridaan raacdayda ku badan way wixii la soo maray mooga laakiin kuwaasi way ogyiin aabayaashoodu way uga sheegeen way heer waxa la gaaray markan magaaladan Hargeysa la soo galay ee lagu soo noqday qasabada biyaha ma jirin wala la baxay masaajid mu jirin way qarxiyeen way qaateen wax allaaliyo wixii hanti taalay wadanka waxay laayeen dadka oo dhan bay laayeen wax allaaliyo wixii bulshada oo dhan bay ay laayeen gamta u istaageen awoodooda isticmaaleen laakiin maanta bariyay ku jiraan haddaba waxa weeye dad kasta wadankiisa waxa uu leeyahay adigu gurigiina leedahay gurigiina inaad qurxiso alaab dhigato oo sharaxato oo aad qurxisaa loo baahay inaad wadankaagi weeye ee gurigaagu waa wadankaaga marka lama horaan waa caws jilaal bay Soomaalidu tiraahdaa horta dhalinyaro markaad maskaxdiina markasta inaad ku haysiin inaad ka leediin aanad u baahnayn mid kale daba carar dad kalena aad ma garanaysa aan gelin baa loo baahay rag badan ba ayaa xamar u ooya oo koonfur u ooya Soomaali u ooya anu waxaan leeyahay wax naxariis oo naga dhaxeeya ma jiraan waayo maan sayr ban halkan aan oo quusgoyn la yiraahdo quusgoyn haday dadka qaar u naxariistaan aanu naxariis yar oo inta lagu mahay waxaan leeyahay dadka qaylinaya qiira xamar u hayso qolo sideedaba qaarad loo istaajaan qaybtay ku noolahay qaanac baanan kuba ahay ha ka nixin qaraxyada iyo qiiqa kaba kaca nafsi baa qodaayo kolba qayb fadhaaye ha qasnaato koonfuri ilaa ma qiyaamaha ha qasnaato koonfuri ilaa ma qiyaamaha qof jira hadaa tahay calankeena quruxda leh ee tawxiidka lagu qoray qiirada wadaninimo qaybtaada qaado qoom kastaba adduunyada ka qotome agtooda ha lagu qadariyay heestii hore berigi hore waxa loo dhin jiray heesta Soomaaliya ya Soomaalidii midowday ayaa loo dhin jiray oo saxalkii baxyo samaatee imika waxaan leeyahay aan u sheegayaa dadka Soomaaliyeed ee Soomaaliya ku balanbalaya Soomaalidii istisho kala socdaashe iyadoo israacday ku seexan iyadoo israacday ku seexan subag ciid ku daatay siina uma hagaago waa suniya booge xamarey salaama waa suniya booge Soomaaliya salaama marka aan mid ku ilaahdo waxaan kale leeyahay Somaliland socoto calankii sudno saarne gidigin usarakae calankana salaama Somaliland hanolato adeer dadku haday kala socdaan inay isku soo warwareegaan ma eeg waaliyaha qaar waa la tabiibi karaa qaar aan la dabiibi karin baa jira eeg ma dad aad laysay oo aad dadkoodii iyo dalkoodiiba baabiisay oo aad hurguftay hada waxna aanad hantina uga tagin oo aad eber ka dhigtay oo maalkoodii qaadatay oo wax walba ku samaysay ayaad haddana doonaysaa inaad tiraahdo ha waanu midoobanaa marka horta xamaray quusan leeyadeena yeynaan isku warwareegin hal kala warwareego wax la yiraahdo shirar oo la qabanayaana annaguna raali kama nihin dhalinyarada iyada quruxda badan lina
iyagaa xukumaaya waddankooda adeer uma baahna xamar oo gaajoonaysa iyo dad gebigooduba silcayo qaxootiya soddon sannadood ayaa tacabkii laydin geliyey eg ayaa quruxdaas ay ku soo baxday idinkuna inta cimrigiinna nooshiin dee kanaad leediine siraada oo qoladee markaad u jawaabasiin hadday af miishaarnimaydin la soo galaan abbowa macaana soomaali baan nahay iyo kan waaye ya kab la dhaca kab la dhaca dawarsiga ay dawarsanayaanna iyadiyo dowladahooduba iyo dowladoodan daacuunkiiba adduunyada dee hala wareegaan iyadoon cilaan ha noolaato somalilan ha jirto ha waarto idinkuna noolaada nin inama talaya inuu facash la soo shiro ayay naga badbaadinaysaa waxay naga badbaadinaysaa nin intuu xamar tagay ka soo shaqaysanaya oo intuu guriga ka soo dhistay maalintuu soo dhammaystay wixiisiina yidhi cafis baan doonaya kaa maxaynu ka yeelnaa wallaahi bilaahi anigu kaa aakhiraan u diri lahaa aakhiro mid yarna xamar baan odhanaya horta halkana waanu idinkaga adkaan halkaana waanu idinkaga adkaan sababtoo ah intay idiin yimaadaan oy lacagtiina qaataan oy cashuurtiina qaataan oo laydinku qarxiyo meeshiina ayaa haddana halkan ka dhisanaya taawarada ay ka dhisteen wallaahi inaydaan ogeyn dabadeedna markay idinka soo dhammaystaan ay shilinkiina soo xaabiyaan ee halkan keenaan cafis bay soo weydiistaan oo idiin doqodhiimo soo buufiya baan idin iminka matalan baa kuwii burburiyey hargeysa dhintay waxaan idhi alla uma naxariisto waxa kuugu soo horeynaya kuwa somalilan iyagoon kuwa kaleba ku soo gaadhin kuwa somalilan ayaaba lagaaga oo la garanaya hadda oo wariya yaala oo habliyayna maba leh inta ilaahay ka sakayso horta waa la buufinayaa sida kaneecada loo buufiyo ayaa loo buufinayaa waan idin salaamayaa dhammaantiinba waxaan idin leeyahay walle mahagraado dhulkayga walle xaalisuugama baydho walle hawlugama baaqdo ninka wada hadimadiisana walle abid lama heshiiyo walle uhuray naftayda alxamdulilah rabbilcaalamiin hooyaa tahay in awlaadeedu leeb tahay la fil tahay in 15 jir ku curatay Somaliland u dhalatay ku dhashay inta u baahan wallahi billahi tala xataa hadii ay gulaho alif malyan baa lagu siiraya Djibouti waa tanatay inaan tagin idinku xamar iyo meel kale waa qaadaysaa sida weeye inta marka ka tago waxaan daliil soo jeedinayaa kuwa reer Somaliland ee maalin walba macaaya annagoo Somaliland cidaan ugu sii annagoo xukuumad ugu sii annagoo xisbi ugu sii annagoo galab baarlamaan ugu sii lacag kuwiirti ugu sii waxaa dhalinyar maanta Somaliland u gobol galaysa ee lookalka iska dhigtay ee maanta nin meel kale tegi karaa jirin ee godobta u qaaday mustaqbalkooda iyo labaatan jir ah godobta u geliyay Somaliland aad baan u faraxsanahay biyada Somaliland qofka jecel Somaliland runta markaan idin sheego ma haysaaq dad baa aaminsan inay tahay isaaq inta aaminsan isaaqnimadu ha dhacdo waxaanu aaminsanahay qaranka Somaliland ilaa iyo ceeri gaabo ilaa baran ilaa dhahar ilaa iyo meesha la yiraahdo salal annaga qadiyadayada meel walba oo taaganahay 200 sano hadii aan nala itraafayn waa sidaas aan ahaanayna Somaliland guul inta nacab ha dhacdo inta jecel ha noolaad beesha caalamka waxaan idin ogeysiinaynaa mar koobaad iyo mar labaad annaga madaxweynaha iyagu ma ay dooran baarlamaantari ma ay dooran golo shacab ee waxa doortay 4 milyan oo qalbiyada iska jecel dadka Soomaaliya waxaan leeyahay waa la wada hadli karaa oo waa la isku iman karaa oo waa la wada xaajoon karaa oo waxba la iska wada weydiin karaa laakiin aynu wada hadal leh maxaynu ku wada hadalnaa masku imaasho sakala gurasho
سؤال شمال الشعب الجمهورية الصومالية أي سويدينيا واضح واحد هذا ندرك الصومالية محايدي كقوي والد سويديسان يا بعضي والله يا بيشا كلا رضي ذكر قبوه وكما مركز طيب قوتستا شعب الجمهورية الصومالية وحاليا هي يقف كستو مقالك كان دقيسنا يا ممريكا بالي ما إنجليز بالي ما جيبوتي بالي ما كينيا بالي ما إثيوبيا بالي يالي صوماليلاند نولا دخردي قليو وحي تنايبو دعاي دخردي قليو وحي تنايبو دعاي على سورة شيديو قرني ما تكسر ليو على سورة شيديو قرني ما تكسر ليو وابا إذا طالعي وانا داين محادي دي بنادو عرقتنا هاو حيران يا هاو حيران دو يدا